daawadayaal ku soo dhawaada saxafi film channel oo idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee aktarada ka tirsan shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya. daawadayaasheena qiimiga badan waxaanu soo qaadanaa barnaamijyada kuwa ugu xiisaha badan oo aynu ku faalayno aktarada dalkaasi Hindiya ka soo jeeda iyo filimada ay sameeyaan iyo dhaqamadooda kuwa ugu xiisaha badan. barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa 9 aktar oo kamid ah aktarada dalkaasi Hindiya ka soo jeeda ee filimada ka dhiga shirkadaha kala gedisan ee dalkaasi ka jira. daawadayaal 9 kan jila ee aynu soo qaadanayno waxa ay tahay ujeedka aynu ka leenahay muuqaalada ay leeyihiin sida dhabta inta aanan loo marin make-upka waxa loo yaqaan ama banaashnaashka qofka wajigiisa lagu sameeyo ama turukada la saaro marka uu filimka jilayo iyo muuqaalka dhabta ah oo uusan soo bandhigin marka uu filimka dhigayo ee uu leeyahay aktarkan ama jilaagan inta aanan loo marin make-upka. sida la wada ogsoon yahay aktarka inta uusan soo galin ama bajileenka ama qaybta duubitaanka waxa uu yahay shakhsi sida dabiiciga ahayd oo Ilaahay uu uumay ayuu wajigiisa u sameeysan yahay, balse marka filimka laga duubayo waxa u qaabilsan qaybta make-upka ayaa waxa ay wajigiisa ka dhigaan waji aad u qurxoon oo soo jiidasho leh oo muuqaal qurxoon si uu soo gudbiyay ayaa shakhsigaasi wajigiisa loogu sameeyaa make-up. haddaba jilayaasha aynu soo qaadanayno waxa kamid ah oo farqiga weyn uu u dhaxeeyo marka ay make-upka loo mariyo iyo marka ay caadiga yihiin jilaaga caanka ee ka soo jeeda reer Telugu ama South Indian films ee Akinene Nagarjuna. daawadayaal Akinene Nagarjuna waxa uu kamid yahay jilayaasha Hollywoodka ay raahday kuwooda ugu cadcad qaybta Telugu films. muuqaalka idin muuqda Akinene waxa uu marsan yahay waxa loo yaqaan make-upka ama turukada wajiga qofka la mariyo marka uu filimka sameynayo. hayeeshee markii uu caadiga yahay muuqaalkiisa waa uu ka duwan yahay oo mararka qaarba waxa ay kula noqonaysaa in uusan ba ahayn jilaagii filimada jili jiray ee Akinene Nagarjuna. sida haddaba aragtaan muuqaalka idin muuqda waa muuqaal uusan wax make-up wajigiisa marsanayn ee Akinene Nagarjuna, waana muuqaalka dhabta ah ee wajigiisa uu leeyahay. daawadayaal jilaaga labaad ee aan soo qaadanayno oo isna make-upka ugu badan wajiyadiisa aadka loo mariyo waxa kamid ah jilaaga reer India ee Govinda oo kamid ah xidigaha Bollywoodka sagaashamaadkii ugu cadcada. haatan daadiisu waa ay soo islaatay waxaana wajigiisa la mariyaa make-up aad u badan si muuqaaladiisa ay u noqdaan kuwa aad u qurxoon. haddaba muuqaalka idin muuqda waa muuqaal uu make-up marsan yahay Govinda, balse muuqaalka xigi doona waxa uu noqon doonaa jilaaga Govinda oo aanan wax make-up wajigiisa u marsanayn. haddaba waxa idin soo bixi doona daawadayaal farqiga u dhaxeeya jilaaga wajigiisa marka uu make-up marsan yahay iyo marka uusan marsanayn. waxa idin soo baxaysa daadiisa dhabta iyo muuqaalkiisa xaqiiqda ah ee uu shakhsigaasi leeyahay. daawadayaal jilaaga saddexaad ee aynu soo qaadanayno waa jilaaga daadayar ee Abhishek Bachchan. waa wiilka uu dhalay Amitabh Bachchan, jilaaga caanka ee Bollywoodka. Abhishek waxa uu kamid yahay jilayaasha aadka u daadayar haddana sidaas oo ay tahay misana isticmaala make-up-yada ugu badan. haddaba muuqaalka idin muuqda daawadayaal waa Abhishek Bachchan oo loo mariyay make-up ama turuka wajiga dhaldhalaalinaysa si muuqaaladiisa ay u noqdaan kuwa aad u qurxoon. muuqaalkan dambe ee xigi doonana waxa uu yahay Abhishek oo aanan haba yaraatee wax turuka wajigiisa aan la marin ama make-up oo caadi ah. waxaana halkaasi kaaga soo baxaysa farqiga u dhaxeeya iyo midabka dhabta ee uu leeyahay Abhishek Bachchan oo kamid ah jilayaasha Bollywoodka. haddana inta kaga gudba Abhishek Bachchan jilaaga afraad ee aan barnaamijka ku soo qaadanayno waa jilaaga caanka ee Sanjay Dutt. Sanjay Dutt haatan daadiisu 50 ayay kor u dhaaftay, waxaana lagu qiyaasaa aktarada ugu da'da weyn muddada badan ku soo jiray fanka ama bajilinka shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. haddii aanan make-up badan wajiga Sanjay Dutt aan la marin muuqaaladiisa waxa ay noqonayaan kuwa nanless ama aan dadka soo jiidan oo aan cajabin. sidaa daraadeed Sanjay Dutt waxa uu isticmaalaa make-up kala duwan oo ay keenaan dadka sameeya ama ku shaqo leh make-upka ama qurxoonaysiinta qofka wajigiisa. Sanjay Dutt haddaba muuqaalka idin muuqda waa muuqaal uu marsan yahay make-up ama turukada wajiga la mariyo, waxaana wajigiisa ka muuqata dhaldhalaal iyo iftiin iyo soo jiidasho. hayeeshee muuqaalka xigi doona aad arkaysaan waa Sanjay Dutt oo haba yaraatee wax make-up aan wajigiisa la marin. marka waxa idin soo baxaysa daadiisa iyo duqnimada uu haatan ku sugan yahay Sanjay Dutt iyo muuqaalada dhabta ee wajigiisa uu leeyahay. haddana inta kaga gudbo Sanjay Dutt jilaaga
shanaad ee barnaamijka aan kusoo qaadanayno waa jilaaga caanka ee wada taqaanaan ee Akshay Kumar. Akshay Kumar muuqaalada uu filimaanta ku dhigo waxa ay yihiin kuwa aad u qurxoon marka loo mariyo make up sida haddaba idinka muuqata sawirada. Akshay Kumar garkiisa iyo madaxiisa qayb kamid ah waa ay cadaadeen oo waxa ay cideeyay ciro amaba tinta oo isbedeshay da amaba xiritaanka uu ku sameyn jiray garkiisa. hayeeshee marka uu filimada sameynayo waxa loo mariyaa make up aan inaba caadi ahayn oo ka soo saara muuqaalkiisa muuqaal aad u dhalin yar. haddaba Akshay Kumar waxa lagu tiriyaa in uu kamid yahay jilaayaasha aadka u ilaaliyo wajigooda jimicsiga badanna sameeyo oo aan da'dooda haba yaraatee laga dareemin. haddaan intaa kaga gudbo Akshay Kumar waxaan ku xujin doonaa jilaaga kale ee caanka ee Salman Khan. Salman Khan oo kamid ah jilaayaasha Bollywoodka kuwada ugu da'da weyn haatan da'diisu ay kontonka kor u dhaaftay. jilaagan waxa lagu tilmaamaa in uu wali kamid yahay jilaayaasha muuqaalkiisa uu aadka u da'yar yahay marka la fiiriyo da'da uu jiro iyo wajigiisa. hayeeshee sidaas ay tahay waxa uu Salman Khan isticmaalaa turukooyin amaba make up aan inaba caadi ahayn. muuqaalka idin muuqda waa Salman Khan oo u diyaarsan amaba in laga duubo film isagoo wajigiisa lagu dhoobay ama la mariyay make up noocii ugu dambeeyay. hayeeshee muuqaalkiisa dhabta ee Salman Khan oo aanan marsanayn wax la yiraahdo make up wajigiisa noocan ayuu u egyahay daawadayaal. haddaba jilaaga kale haddaan inta kaga gudbo Salman Khan jilaaga kale aan soo qaadanayo waxa uu yahay Aamir Khan. Aamir Khan oo kamid ah xidigaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya waxa lagu tiriyaa inuu kamid yahay aktarada ugu jiliinka wanaagsan uguna kana mid ah aktarada muuqaalada ugu wanaagsan kusoo bandhiga filimada uu jilo. hayeeshee Aamir Khan muuqaalkiisa dhabta ah iyo kiisa marka la mariyo make up kaada ay kala duwan yihiin. muuqaalka idin muuqdo waa Aamir Khan oo u diyaarsan in uu film dhigo isagoo wajigiisa ay marsan tahay make up amaba turukada wajiga lagu qurxiyo. hayeeshee muuqaalka dhabta ee Aamir Khan inta uusan marsan make upka waxa uu u egyahay nooca haatan idin muuqda. Aamir Khan garkiisa iyo madaxiisa waxa ay yihiin wada boosh ab isaga oo madaxiisana la mariyo madoobaysa amaba tinta kalarada kala duwan ee lagu madoobeeyo. wajigiisana garka cirada inta laga xiraa ayaa waxa la mariyaa turuka nooca ugu dambeeyay. sidaasna waxa uu ku soo bandhigaa muuqaal aad u qurxoon oo dunida dadka filimadiisa daawanaya ka gadmi kara. haddaba jilaaga kale aan barnaamijka ku soo qaadanayna daawadayaal waa jilaaga caanka ee King of Bollywood waa Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan daadiisu haatan waa ay soo cuslaatay muddo badan fanka ayuu ku jiray waxa uuna ku khasbanaaday inuu isticmaalo make upka amaba turukooyinka wajiga lagu qurxiyo oo lagaga ilaaliyo duuduubka ama hararka wajiga uu yeesho. wajiga Shah Rukh Khan inta uusan filimka dhigin amaba make upka aan la marin waxa uu leeyahay duuduubo ama laalaabyo ay sababeen da'da uu jiro iyo isticmaalkii badnaa ee uu soo isticmaali jiray turukooyinka kala duwan ee wajigiisa uu isticmaalayay. hayeeshee saas ay tahay haatan waxa uu isticmaalaa turukooyin kala duwan marka uu filimka jabeynayo balse marka uusan marsanin make upka iyo marka uu marsado farqi weyn ayaa u dhaxaysa oo waxa soo baxaysa muuqaalkiisa dhabta ee jilaagan uu leeyahay. daawadayaal haddaan intaa Shah Rukh Khan kaga gudbo waxa aan ku soo khatimaynaa jilaaga Rajinikanth amaba Soomaalida ay u taqaano Jeestole. Jeestole oo fanka ku jiray muddo aad u tiro badan oo gaaraysa ilaa 40 sano ilaa haatanna ku jira fanka oo waliba haatan soo wada filimkiisii Robots oo ay wada wadaan jilaaga caanka ee Akshay Kumar. waxa uu isticmaalaa turukada dhowr nooc midna waxa uu isticmaalaa wajiga midna waxa uu isticmaalaa bidaarta oo Rajinikanth tinta ayaa ka gurmata ama tintiisa ayaa siimatay waxaana uu leeyahay bidaar weyn saas daraadeedna waxa uu isticmaalaa Rajinikanth tin buruka oo uu ka sameesto tintiisa hore mid u muuqaal eg. sidaasna waxa uu ku soo bandhigaa muuqaal cajiib ah marka uu filimka jilayo. hayeeshee muuqaalkiisa dhabta Rajinikanth waxa uu yahay haatan sawirka idin muuqda waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn oo hadii haatan uu ka hor yimaado Rajinikanth oo lugeynayo u maleyn maysid uu ku yiraahdo waxaan ahay Jeestole waayo muuqaalkiisa dhabta iyo kan filimada uu ku dhigo daawadayaal aad ay u kala duwan yihiin. daawadayaal barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in daawadayaasheeda aynu la wadaagno farqiga u dhaxeeya jilaaga marka uu filimka dhigayo oo wajigiisu marsan yahay make up iyo marka uusan marsanayn. daawadayaal barnaamijka waxa aad ka daawanaysaan Saxafi Films Channel oo idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ha moogaanina inaad subscribe tiraadaan Saxafi Films si aad barnaamijyada xiisaha leh uga dhaataan ama aad ula socotaan. inagoo isku duuban oo baada Saxafi Filmsna waxaan idinkaga tageynaa intaanu dib dambe u kulmayno sida iyo nabadgelyo.